بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا لي الأول الله سبحانه وتعالى جل وعلا ما هذا سكال عليه السلام نقدقي إله بينه شكرنا أن ماذا سلا سبحانه وتعالى نقول قال ديستي وحين صد الدار بين الرب سبحانه وتعالى عبسي ديسا ولا لي وحا أيان درأة إن ضدك صوماليات أي إسلينيان أو ديجي مسلم كأي بنيستان من مشرقها ومغربها taas oo maaragtay aan aad oola yaabay sida isu laynayaan aysa waantoobeen culummadu habeen iyo maalin wax u sheegayaan waxaan la yaabay wiil yar oo dhalinyaro ah oo mar aan ka hadlayay isla maaragtay kelimadan oo ilmaha inta ku koray ahaa oo wuxuu yidhi adeer maxay dadkanaga isu laynayaan buu yidhi soo diintii ma aysa gaarin buu yidhi waa cajiib waxaad arkaysaan aayaadka allah subxaanahu wa tacaala uu ka warramayo qofka qof mu'mina dila waxa uu helayo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku abaalmarinayo haddii aynu fahmi lahayn dhammaanteen ilaah baynu ka baryaynaa jalla wacala allahna fahamsiiye waxaad arkaysaa in uu qofku uu noloshiisa dhan wax ka bedeli lahaa ma aha oo keliya qofka wax dilay kan xabadda riday keliya ma aha laakiin kii ku farxa kii hadal ku taageera kii maaragtay muxuu ahaa dhaqaalo u aruuriyo intaba waxay ay ku wada fariisanayaan hal doon bay ku wada fariisanayaan arrinka alla subxaanahu wa tacaala nooga warramayana way wada helayaan alla wuxuu yidhi waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazaahu jahannam khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima ilah wuxuu leeyahy qofkii qof mu'mina dila si ula kaca waayo reer baa loo dilayaa ama fikir adigu kaa soo jeeda ayaa loo dilayaa ama masaalix baa loo dilaya laakiin hadda midda socoto waxay u badan tahay boqolkiiba boqol waa qabiil reer hebel wallahi inuusan reer hebel berito maalinta qiyaama markii la gaaro uusan waxba kuu tareen adiga oo qaawan oo keligaa ah ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala hor istaagi doona waxa kaa horeeya oo aad heli doontidna wuxuu noqonayaa waxaad adigu shaqaysatay waxaa jira xadiis nabiga sala allahu calayhi wasalam ka sugnaaday rasuulka sala allahu calayhi wasalam labadaas xadiisee lisu waafajinayaa baa layidhi mid wuxuu sheegayaa waxa uu leeyahy rasuulka sala allahu calayhi wasalam qofka waxa ugu horreeya oo la weydiin doono waa salaada buu leeyahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiis kale jira oo rasuulka salawaatullahi wasalaamu caleyh uu tilmaamaya wuxuu leeyahay qofka waxa ugu horreeya oo la weydiin doono waa dhiigga buu leeyahay rasuulka salawaatullahi wasalaamu caleyh maxaad ku jawaabi doontaa marka waxaa loo kala hormarinayaa bay xaqa ilaahay baa subxaana wa tacaala la hormarinayaa kadibna xaqa bini aadanka ayaa iyagana markaas ku xigi doona alla wuxuu yihi qofkii qof mu'mina dila si ula kaca ula dila abaalkiisu waa jahannama yaa allah waa kuma addoonka ama addoonta u barbardhici kadha jahannama ma jahannamo keliya lagugu daayo may khaalidan fiiha wuu ku waarayaa waqadiba allah ilaahay caradiisa iyo lacnadiisa ayaa maaragtay ayaa korkiisa ah ilaahayna cadaab aad u weyn bu alla subxaana wa tacaala ayuu u diyaariyay rabbi subxaana wa tacaala walaalayaal aynu iska ilaalino dhiigga muslimka ah aynu ku farxayno waxaa iyadana qaybta labaad aan raba inaan ku sheego social mediahu dadka u furtay oo magaca qabyaaladeed ama calanka ah ama maaragtay ama u ooynaya oo maaragtay dhiiragelinaya dagaalkaas kan xabadda ridaya idinkuba isku meel baad imaanaysaan maalinta qiyaamo kan xabadda ridaya oo dhiigga dilaya iyo adigu waxba isma dhaantaan isku mid baa tihiin labadiinaba war dadkan maa social mediaha jooga oo ragga iyo dumarka ah ee habeen iyo maalin u sacabtumayo sidii qof walaalkiisa loo dilo ogsoonow hadda ayaad fursad haysataayee gacmahaaga dhiigga kala bax miyaynu ku cibro qaadan ilaa yoomina haadaa waxa aynu maanta soomaali isugu imaan weyse ay tahay dhiigga annagu aynu ballaysanay miyaynu ku cibro qaadan waxaan walaalka imaqlaya iyo walaashay maqlaya odhan lahaa ha ka qayb qaadanin af maal niyadda aad ka jeclaatid ha ka qayb qaadan salaad lagaa aqbali mayo soon lagaa aqbali mayo ee ha ka qayb qaadanin ee ka shaqee sida aad maanta maaragtay ummaddaas muslimiinta ah ee isdilaya inaad maaragtay muxuu ahaa wax uga qayb qaadatid dadka islaynayana waxaa nabigu sala allahu calayhi wasalam uu noo sheegay
كان واحد دليا كان لدليا لبضوض في النار برسول صلى الله عليه وسلم وايو كان واحد دليا كان كلا وحور رادين يا سجن نودله إلهي سبحانه وتعالى وحن كبر ينا صومال قلوب تود الله يسكنه إلهي سبحانه وتعالى وحين كبر ينا ودنك إلهي سبحانه وتعالى الله ما رتنوب باديو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.